kusoo dhawaada warka caalamka qodobada daawan doontaana hadduu aleedmo waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka oo ka baaqday xuska 14 Oktoobar sababaha ay ugu baaqdeen ayaa daawan doontaan hadduu aleedmo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isna waxa uu sheegay in qaraxii 14 Oktoobar loogu yeeray musiibo qaran sababta ayaad ku ogaan doontaan hadduu aleedmo qaramada midoobay oo warbixin culus ka soo saartay canshuurta al-shabaab ee ka qaadaan dadka rayidka iyo dagaalka Turkiga uu ka wada Syria oo waji cusub yeeshay kadib go'aankii dowladda Suuriya qodobadaas iyo qodobo kale oo ka mid yihiin kumanaan qof oo ka qayb galay xuska 2 sano kadib markii al-shabaab ay qarax ka geysteen isgoyska Soobe ee Muqdisho oo maanta dadku iskugu soo banaan baxeen waxaa tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir shacab badan ayaa ka hadlay waxaad ku daawan doontaan inta uu socdo warka hadduu aleedmo goordhow u diyaar garooba qodobadaasi oo dhammaystiran markale daawadayaal kusoo dhawaada qodobadii aad daawateen oo dhammaystiran qodobka ugu horeeya hadduu aleedmo waxa uu noqonayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta ka baaqday xuska 14 Oktoobar ee lagu qabtay isgoyska uu ka dhacay xasuuqii Soobe xuskan oo ahaa mid dad badan loo diyaariyay lana filayay inay ka soo qayb galaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkood ayaa mar qura waxaa la arkay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo halkaasi jooga xafladan oo isla markan fariin ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sababta ay ugu baaqdeen ay ahayd inay heleen xog ku saabsan khatarta al-shabaab in mar kale ay ka fulin karaan weeraro isniidaamin ah kuwaasi oo fariimo ammaan ah xalay ay dirayeen laamaha amniga ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa labaduba tagin goobta maanta dadku ay iskugu yimaadeen balse waxaa tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo inta badan ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo xasuuqii ka dhacay 2 sano ka hor isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho kumanaan shacab ayaa iskugu soo baxay kuwaasi oo muujinayay dareenka ku aadan xanuunka ay lahayd 2 sano ka hor maanta oo kale dhibaatadii ka dhacday haddii aan hadalkayga la maqlayn waxaan idinka codsanayaa in gacanta saas loo taago taas macnaheedu waxa waaye hadalka ma maqalno waay walaalayaal maantay waa maalin qalbigeenna xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay sax ma tahay hadalka lama maqla miya maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo fariin aan idin soo gudbiyo fariin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre ay ii soo dhiibeen fariintaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ii soo dhiibeen waxay tahay naga gaarsiin shacabka gobolka Banaadir ee samirka badan ee dulqaadka badan inay ku habboonayd maantay inaan kala soo qayb galno munaasabadda aan taariikhiga ah oo ka turjumta dadkaani ma ilaabo cidda wax yeesha fariintaas waxay xambaarsan tahay maadaama ay tahay xilli qorrax kulayl ah meeshu ay tahay wadda laami ah haddaan dhammaanteen kala qayb qaadanno dhibaato qorrax waa rafaadayaane aan koobno cidda nooga qaybgelaysa isla markaas fariintayna gaarsiin karta intaas ayay isoo fareen waad maqlaysiin filaya
waxaad garan kartiin haddii mas'uuliyiin fara badan ay meesha yimaadaan hadalka la wareejiyo oo mas'uulba mar loo dhiibo in taagnaanshaha iyo qorraxda lagu dhibtoonayo si aan loogu dhibtoon ayagoo u dhimrinaya shacabkooda ayay yidhaahdeen wixii aan dhihi lahayn adigu noo dheh warkayga waad maqasheen filaya sidaas darteed walaalayaal maalintan ayada ah maalintan 14 Oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay waxa laga bartay inaan isku duubmi karno waxa laga bartay inaan adkaan karno qodobka kale aad daawan doontaan hadduu haleedmo waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hor yimid qaraxii 14 Oktoobar in loogu yeero musiibo qaran Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hor yimid in qaraxii Zoobe ka dhacay in uu ahaa musiibo qaran sababta waxa uu ku sheegay in musiibadu ay tahay wax gacanta bini'aadamka ka baxsan sida daadadka fatahaada duufaanta iyo dhulgariirkii waxyaabaha la midka Cabdiraxmaan ayaa sheegay in wixii ka dhacay isgooska Zoobe 2 sano ka hor ay ahaayeen xasuuq uu cadow geystay shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in aan ka dayno afkeena in aan ugu yeerno musiibo qaran sababtoo ah musiibadu waxay ku dhacdaa ayuu sheegay in gacanta bini'aadamka ka baxsan sida daadadka fatahaada dhulgariirka iyo waxyaabaha la midka waxaana uu sheegay in wixii dhacay 14 Oktoobar ay ahaayeen xasuuq uu cadowga ka tirsan dadka Soomaaliyeed ay u geysteen ama uu geystay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in hal dhinac looga soo jeesto dhibaatooyinka ay geystaan al-shabaab dawladuna ay ka marin habaabinayso shacabka xaqiiqda rasmiga balse sababtu waxa uu ku sheegay in waqtigan ay muhiim tahay in laga soo wada horjeesto la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in shacabku ay muhiim tahay in waqtigan ay ka qayb qaataan dhibaatada al-shabaabku ay ka geystaan gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qormadiisa inta badan kaga hadlo dhaliilaha dawladda balse tani waxay dadka intooda badan ay ku sheegeen in wax saxan ay tahay ee laga soo horjeesto la dagaalanka kooxaha al-shabaab ee ka geysta gudaha Soomaaliya dhibaatooyinka kala duwan boqolaal shacab oo dib u xasuusanaya 2 sano ka hor maanta oo kale wixii ka dhacay isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa iskugu yimid isgooska Zoobe kuwaasi oo intooda badan ka hadlay xanuunkii 2 sano ka hor maanta oo kale gabar ka mid ah gabdhaha walaalkeed uu ku dhintay ayaa warbaahinta la hadashay waxaana ay sheegtay in muhiim ay ahayd maanta oo kale inuu kaga soo qayb galo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo balse waxaana la sheegtay in aysan filaynin inuu ka soo qayb gali lahaa ama qofka ugu weyn uu noqon lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Faadma Cabdiraxmaan Maxamed maanta xaawi maade walaalkay Ayub Cabdiraxmaan Maxamed intuu nooga dhintay maade Ayub ardayo wuxuu ka mid ahaa ardaydan oo jaamacadda Muqdisho dhiganaysa maalintii oo maxaa ku dhahay galab xilli ay tahay oo soo baxay waqtigaas oo meesha qarx uu ku haleelay ilaahay miskiisa waxaa leeyahay waxaa fiicnaan lahayd in markii hore laga taxadiro oo dadka waxa dhibaato ku aaday dawladda inay ka hadasho ama markii horeba ay ilaaliyaan waayo amniga ayaga loo xil saaray waxaa maanta kale xamaasad lahayd inuu madaxweynaha imaado maxaa yeelay inuu dhibaatada nala qaybsado ayaa fiicnaan lahayd laakiinse waxaan ka xumahay inuusan imaanin waxaan kaloo leeyahay waxaan rabnaa dawlad cadaalad ah oo waxaan rabnaa inaan helno ammaan sugan walaalaheena wiilasheena waxaan weynay dhammaan dadka nagu qaaliga ahaa inkastoo Soomaalidan ay ka wada baxeen haddase waxaan rajaynayaa in dawladdeena cadaalad samayso waddankeena uu noqdo wadamada ka hormaro uu ahaado waddanka lagu daydo nabadgelyada dhankeeda dhalinyaradii markay soo baxaan waalidku way ka walwalayaan gabdhaha ay qabaan sidoo kale walaaluhu sidoo kale wax maanta oo soo baxa oo magaalka soo aado walwal aan laga qabin ma jirto waxaan dhihi lahaa in uu dalkeena noqdo
dal maxaa ku dhahay wadajir ku dhaqmo oo wadanka looga dambeeya ammaanka iyo nabadgelyada ani maanta ma hadli karo waxaan ka qiiraysanahay walaalkay oon xataa weli curanin adduunkan hal cunugna aan uga tegin inaan ku waayay waa midka keliya nala dhashay wuxuu ahaa hooyo iyo aabbo mid u ahaa waxaan noqday walaal la'aan keliya maanta gabdho bisaan laga dhisaa laga halka cunugna waa naga dhintay Soomaaliya waxaa leeyahay walaalaheen inay ilaaliyaan dowladana ka magaciisayaan argagixisada ma la dagaalamaynaa al-shabaab dooni mayno al-shabaab ummadoox hooyo dile afka duubte al-shabaab ummadoox hooyo dile afka duubte waa mahadsantihiin cidaan ka baqayna ma jirto soomaa waa mahadsantihiin dhalinyaroy waxa la haysto waa idinka waxa lagu dhuumalaysanayana waa hooyada Soomaaliyeed gurigeeda dhexdiisa waxa soo abaabulayana waa lagu adeeganaya waa kuwa nagu midaba aan la dagaalano waxaan leeyahay nimanka daroogaysan ee afka soo duubtay ee baqanayo ee aan imaan karin dadka iyo ciidamada hortooda ee ganacsiga laynaya ee magaalada quruxdeeda diidaya oo hooyada Soomaaliyeed diidaya hooyo 80 sano jirto bal hooyo 80 sano jirto oo shaah karinayso qofka dilay muxuu noo reebtay hooyo 80 sano jirto qofka dilay ma asxaanu loo sameeyey waryaada cabsanine nafta maalinay go'aysaa ayaan iska celino dhalinyarada Soomaaliya ay maqal dhawaaqayga dhalinyarada Soomaaliya ay maqal dhawaaqayga dhalinyarada Soomaaliya ay duga dhamaalkayga dhalinyarada Soomaaliya iska celiya cadowga badambeed dhulkaana laguma baahan karo waxaan nahay qani adduunkana waxaan rabaa inaan ugu baaqo uma baahnin raashinna loo keeno waxaan u baahannahay in maskaxda iyo aqoontana laga dhiso waan isku filannahay mudana guddoomiye waxaad haysataa dad qiimo badan lagu hogaami cadaalad lagu horka cadaalad ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan degana uma baahna reer hebel uma baahna qabiil waa inaan iska celino cadowga waa inaan dagaalano waa in ciidanka la taageero laakiin haddaan dhahno war dhagxaanta hala qaado dhagaxa la qaado aqli waa biidhaafsan waa xiliga war aqligu waa kee waa la qaadayaa dhagaxa laakiin waa la soo agmaraa baabuurka yaa raran garaashada lagu soo abaabulayaa guryaheennay hurdaan hooyo walba way taqaan ilmeeda hooyo baro ubadkaaga la saaxiib ubadkaaga saygaagu waa maxay muxuu yahay ninkaagu wiilkaagu muxuu qabtaa gabadhaadu xaggee aadaan adduunka meeshaa tagtaba amniga waxaa ka shaqeeya haweenka iyo dhallinyarada war maxaad u ogan tihiin ma waxaan nahay xoolo waa maxay wax nagu socda ma oggolaan karno maalin walbaba inaan badardiqne waa inaan dagaalano biidnillaahi kariim hadalkayga ugu dambeeyo naftaydii tiinaba waxaan kula dardaarmaya saacaddan xilligan waxaan kor taagannahay xinjirihii iyo dhiiggii qarixii soobe ficilaa uma baahnin dhallinyaroy hadal iyo buuq looma baahnee buugga iyo qalinka qaata qodobada kale ee warka aad daawanaysaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo warbixin culus ka soo saartay canshuurta al-shabaab ee ka qaadato dadka rayidka qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay canshuurta al-shabaab ee ka qaado dadka rayidka waxaana ay sheegtay in walaac ay ka muujinayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyay canshuurta qaabka qasabka ah ee al-shabaab ay ka qaadaan dadka reer miyiga ee ku nool duleedka miyiga
warbixin cusub ee ka soo baxday golaha ammaanka ayaa lagu sheegay in canshuurta sharci darrada ah inay sababtay barakacayaal xoogan iyo in dadku xoolahooda ay ka ordaan. waxay sheegtay in hoos u dhigtay dhiirigelinta wax soo saarka beeraha, waxaana taasi loo sababeynayaa dowladda Soomaaliya oo aan in badan la dagaalamin kooxaha Al-Shabaab. qaramada midoobay waxay sheegtay boqolaal qof oo shacab ah inay ka soo barakaceen goobaha Al-Shabaabku ay gacanta ku hayaan. taasna waxay mar kale sabab ugu dhigtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ama dowladdu inay ka gaabinayso la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab iyo inay kala midoobaan ama ay ka saaraan goobaha Al-Shabaabku ay maamulaan. kumanaan shacab oo ka soo barakacay goobaha Al-Shabaab ee maamulaan ayaa hadda waxay noloshooda ku adag tahay ku nool yihiin duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho. qaramada midoobay warbixinta ay soo saartay waxaa ka mid ah haddii aan waxba laga qabanin goobaha Al-Shabaabku ay maamulaan in abaaro iyo waxyaabo kale oo khatar ku ah dalka inay soo wajahi doonaan, maadaama uu aad u sii yaraanayo wax soo saarka dalka haddii ahaan lahaayeen beeraha iyo xoolo dhaqashada, taasi oo sabab ka dhigayso inay gaabis noqoto wax soo saarka dalka. qodobka ugu dambeeya arrimaha dibadda waxa uu noqonayaa dagaalka Turkiga ka wada Suuriya oo waji cusub yeeshay kadib go'aankii dowladda Suuriya. kooxda Kurdiyiinta ayaa sheegtay in dowladda Suuriya ay ku heshiiyeen in ciidamo ay u soo dirto xadka waqooyiga si ay meel ugu soo wada jeestaan duulaanka ay halkaasi ka wada dowladda Turkiga. warbaahinta qaranka ee dowladda Suuriya ayaa wareysi ay siisay ama warbaahinta ay la hadashay lawday waxaa halkaasi ka barakacay kumanaan qof oo shacab ah, waxaana ku dhintay Kurdiyiin badan oo ciidan ahaa oo ciidanka Turkiga ay duqeeyeen, balse dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in arrintaasi ay ku saxan tahay. horey jaamacadda carabta ayaa ugu soo saartay warbixin ama warmutiyad ku saabsan, waxaana taasi ay ahayd mid ay ka gaabsatay dowladda Soomaaliya. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa ku sheegtay in dowladda Turkiga ay saaxiib dhow yihiin ayna ka caawisay dhisidda xukuumadda iyo soo laabashada dhanka dhaqaalaha iyo amniga dalka. qodobkaas ayaa u dambeeyay halkan warka aad ka daawanaysaan. warka xiga intaa ku kulmi doona sida ay nabadgelyo.